degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxaana xilligan ay sameynaysaa horumarro kala duwan oo xagga ganacsiga ah. xogayaha dawladda hoose ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Malable Ibrahim ayaa maanta waxa uu kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee ganacsiga degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose sida suuqa qudaarta, kabaanka hilibka iyo suuqa lagu iibiyo xoolaha kaas oo ka socdo ganacsi aad u ballaaran. xogayaha dawladda hoose ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu xog wareysi kala duwan la sameeyay ganacsatada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona warbixin ka dhageystay xaaladooda ganacsi iyo sida haatan uu yahay ganacsiga guud ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose uguna baaxadda weyn waxa timaada tuulooyin aad u fara badan iyadoona degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose xilligan ay sameynayso horumar xagga ganacsiga ah. qaar ka mid ah dalaaleyda iibiya geela iyo ariga ayaa waxa ay ka warbixiyeen qiimaha xilligan la kala siisto waxaana ay sheegeen in xilligan xoolaha ay markaasi u soo suuq doontaan dadka ka kala yimaada magaalada Muqdisho, Afgooye iyo meelo kale oo fara badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. waa kuwan qaar ka mid ah dalaaleyda oo ka warbixinaya qiimaha xilligan uu marayo xoolaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. alxamdulillah ganacsiga degmada Qoryooley aad u fiicanahay aanan helnay Allah naga erayo nabadgelyo oo dawlad u baahanahay ilaahay dawlad ah noo keenay xoolaha waa laga nabad qabaa dhismada oo wax Allah ma aha lacagtaada bartamaad ku tirsanaysaa haye nabadgelyo qabtaan nabadgelyo qabnaa ma sha Allah saacadan waatay halkan aan taagannahay maxay u kala baxdaa suuqa babal faafaynaysi suuqa xoolaha geela lo'da erega oo lagu ganacsado nin walba wuxuu asaga kaarsado hurnamaas u gadanaa waxiisan hurnamaas u qaadanaa wabillahi tawfiiq. xogayaha dawladda hoose ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Malable Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga degmada Qoryooley uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaana bulshada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ay sameynayaan ganacsiyo kala duwan isagoo dhanka kala sheegay in degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose bulshadayda ay yihiin kuwo aad ugu shaqeeya xagga amniga. waxa uu sheegay in degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ganacsatada aysan jirin wax dhibaato ah oo ay la kulmaan isla markaana si taxadir leh ay ku ganacsadaan. bismillah alhamdulillah waxaan joognaa degmada Qoryooley anigoo xogayaha dawladda hoose degmada Qoryooley Ibrahim Malable Ibrahim waxaan joognaa suuqa xoolaha geela looda ariga sidoo kale waxaan soo marnay qudaarta noocyadeeda kala duwan sida bocorka yaanyada baradhada bocorka qumbaha mooska caanaha meel walbaan soo marnay nabadaa lagu ganacsanaa waa lagu nabad waa ku fiicannahay nabadaasoo ku imaatay xoogga deegaanka rasaasaan gadannaa qoryaheenaan soo gadannaa waa isxilqaan wax la dhahaa haddana waxaan rabnaa isxilqaankan mid laba laaba inaan ka dhigo alxamdulillah ilaahay ay wuxuu nama kelmiyey dadkan in ninku geeliisa uu keensado uu gato lacagtiisa uu qaato erigiisa uu keensado uu gato lacagtiisa uu qaato saana kaashka loo wadaa lama fiirin karo cid la adlaysa malaha cid la adli kartana malaha nabaddaas waxay ku imaatay cadowgaasoo iska dhicinnay oon u taagannahay har iyo habeen ciidamada amniga iyo annaga oo maamulkiia waa isku xirannahay iyo shacabkeennaba waa la ganacsadaa nabadaa lagu ganacsadaa Qoryooley nabadaa ka jirto maciishadeenna waa iska waxa uu sidoo kale ganacsatada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan bilicsuclinta degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose dib u dhiska maadaama degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose xilligan ay sameynayso horumar xagga ganacsiga ah. ganacsatada waxaan ugu baaqaa deegaankooda inay dhistaan guri ninkiisii aa dhista amni annagaa hayno annagoo iskaashanayna amni annagaa hayno ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa sidooda bannaanba inay dhistaan deegaankooda. horumarka ganacsiga ee degmada Qoryooley waxa uu sii kordhayaa waayihii ugu dambeeyay iyadoo gudaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose laga dareemayo ganacsi aad u ballaaran. ammaanka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ah mid aad u wanaagsan waxaana degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose xilligan ay sameynaysaa horumar xagga ganacsiga ah iyadoo loo soo ganacsi doonto degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale waxa uu yimaada ganacsato ka kala yimaada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. halkan waa suuqa
lagu iibiyo ariga looda iyo weliba xoolaha kale ee nool waxaana isugu yimaada boqolaal qofood oo ka yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Aweys Muumin Xasan Aweys oo ka raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Qoryooley Shabeellaha Hoose